shan qodob buu yidhi yuusuf shaacir, shan qodob ayaa lagu haystaa buu yidhi. shanta qodob ee maxkamadda maanta lagu soo eedeeyey, shanta qodobba waa wax lagu qosla ayuu yidhi. madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale, bal qiyaasa intuu joogo. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo maxkamadda maanta la geeyey cabdimaalik muuse coldoon. inta badan waan khaldaa magaciisa, cabdimaalik muuse coldoon weeye, dadka coldoon bay u yaqaanaan. maanta waxaa la keenay maxkamad, saad ka war haysaanba maxkamad ayaa la keenay walaalkeen. maxkamaddii markii la keenay runtii arrin aad iyo aad qaraacan u leh ayaa ka dhacday meeshaas. isaga oo shabaq lagu wado oo dhinacyaha laga taagan yahay ayaa la keenay, sidii isaga oo fakanaya ama dhibaato samaynaya ama dad dhibaato gooni ah ku samaynaya ayaa maanta la keenay maxkamadda. runtii xaqiiqatan ninka dulmi badan ayaa ka soo gaaray somalilan. dulmiga badan waxa weeyaan waa markii afraad ama shanaad ee lagu xidhay wiilka ee xabsi la geliye wey. dadka reer somalilanna wuxuu ahaa dadka aan dhihi karna waa dadka ugu manaafacaadka badan ee shacabka wax u qabta iyo danyarta iyo dadka masaakiinta, agoonta, rajooyinka. ninka wax u qabta ee runtii ka dhex muuqda ayuu ahaa, ilaa ay dadku u bixiyeen samafale ay u bixiyeen. dadku ama ha joogaan meel kastoo ay soomaali degto, shanta soomaaliyeed iyo meelo kale ay soomaali joogtaba, waxaa loo yaqaanay cabdimaalik muuse coldoon samawade ayaa loo yaqaanay, ama samafal ayaa loo yaqaanay. nin wuxuu ahaa hay-ad madax bannaan ayuu ahaa. ninkaas imtixaan rabbaani ayaa ku dhacay. mar kasta dowladdaasi aad bay u caburisay, way xidhay, xabsiyo badan bay gelisay. 3 sano ku qaatay, mararka qaarkood 1 sano, mararka qaarkood 2 sano, mararka qaarkood bilo. ninkaa runtii dulmi aad iyo aad u weyn oo la soo koobi karin ayaa ku dhacay. maanta markii maxkamaddii la keenay, wuxuu la hadlay qaadigii ama ninkii meesha joogay ee jaajka ahaa buu la hadlay. wuxuuna ku yidhi, isagaa markii hore qaadigu ama jaajku ku dhahay, maxaad iga codsanaysaa ama dadka maxaad u jeedinaysaa markii uu meesha ay maxkamaddu soo xidhmaysay sida ay dadku sheegayaan. allahu aclam, xaqiiqa miya mise xaqiiqa ma ah, dadku sida ay soo warinayaan. marka wuxuu yidhi muuse coldoon, kitaabka qur'aanka ah ee kariimka ah igu xukun buu yidhi. qaadiyo inta aan kaa codsanaya waxa weeye kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ee ka kooban 114 suuradood, axkaamta iyo xukumka u imariyaan aniguna raalli ku ahay, idinkuna ku raalli noqda. ilaahay dartii kitaabka ilaahay igu xukuma, wuxuu kitaabkaas igu xukumana igu fuliye ayuu yidhi. waa kelimad aad u weyn oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala kelimad aad u weyn a wey. kitaabka ilaahay igu xukuma. ilaahayna muxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, haddii fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wa ila arasuul. ilaahay iyo rasuulka u celiya haddaad shay ku doodaan, ood ku murantaan, ood ku kala bixi weydaan. muuse coldoon ama cabdikariim muuse coldoon isaga oo halkaa ka doodaya ama halkaa ka socda ayaa wuxuu yidhi, kitaabka ilaahay baan ku kalsoonahaye kitaabka ilaahay halla igu xukumo. waxaan leenahay qaadiyow, jaaj ow, nimankan meesha socdow, wasiirow, madaxweynow, shacabow, xaggeed gelaysaan markii qiyaamada la idinla soo istaajiyo la idin dhaho kii culummo ahaayow cabdimaalik coldoon markuu yidhi kitaabka allah la igu xukumo, maxaad ugu xukumi weydeen kitaabka ilaahay? maxaad qaadiga ama jaajka uu ugu xukumi waayey? hadduu ku xukumi waayeyna idinku waa taagnaydeene uga hadli weydeen, u dhihi weydeen war kitaabka ilaahay ku xukum, wiilkan kitaabka ilaahay ku xukum, maxaad u dhihi weydeen? waxaa la rabaa ninkii mu'minu aali fircoon waad garanaysaan. markii nebiyullaahi muuse iyo fircoon iyo qibdiyiintii iyo reer bani israa'iil xaaladdu ay ka dhex tolatay, nin la yidhaahdo mu'minu aali fircoon ayaa ka soo dhex baxay, u istaagay xaqa, dhahayey isagoon muujinaynin inuu yahay muslim, diinta nebiyullaahi muusena uu aaminsan yahay isagoon muujinaynin, laakiin mar walba dhahayey war xaggeed ka gelaysaan? hadduu ninkani run sheegaya hadalkan iyo musiibooyinkan uu idiin yaboohayo soo idinku dhici maayaan? hadduu yahay beenaalana, wain yaku kaadiban facalayhi kadibuhu wain yaku saadiqan yusibkum bacdu aladii yacidukum ayuu leeyahay. miyaa la inaga dhex waayey innaga oo dhammaanteen aan ahayn qibdiyiin iyo reer bani israa'iil aan ahaynoo wada muslimiin ah, ummad aaminsan 100% inay muslim tahay, ama 99.9 ummad aaminsan inay muslim yihiin innagoo ah, miyayna inagu ahayn ceeb? miyayna xaggaynu ka geli doonnaa inaan weyno qof culummo ah iyo caamaba iyo wasiir iyo madaxba dhaha war kitaabka ilaahay ee uu sheegaya ha lagu xukumo, kitaabkaas ha lagu xukumo, qof dhaha maxaa loo waayey? adigu qaadiyow ama jaajow, maxaad ugu xukumi weyday kitaabka ilaahay ninkaas? adigaa madax ah,
diinta ilaahay waa taqaanaa, waad ku dhalatay, waa lagugu soo koriyey, waad maqashay, culummadaad ka maqashay, maxaad u dhihi weydeen, ugu xukumi weydeen kitaabka ilaahay? arrinta labaad ee uu yidhi waxay ahayd ee laga soo guuriyey nimanka i dacweeyey ee aniga maxkamadda i keenay waa niman isku wada faamili ah, waa niman dagaalkoodu dhinac ka socdo, laga yaabo qolyihii iskuulkii iyo meelihii lagu haystay jaamacadda iska lahaa inay yihiin. adiguna ku reer baatay, madaxweynuhuna waa ku reer. war niman yahow, waxaa ku jira meesha mugdi baa ku jira bal arrintayda qabiilkii iyo reerkii iyo odayaashii ee haystay unbaa haddana ay xukumanayee dowladnimaha loo dhigo. arrinta lafteeda waa arrin aad iyo aad runtii xaqiiqatan qiimaynteeda u leh. anigu waxaan leeyahay reer somalilandow, ictiraaf baad raadinaysaan. horta reer somalilan waan ku faraxsannahay horumarka ay gaadheen, dowladnimadooda waan ku faraxsannahay, amnigooda waan ku faraxsannahay, dacwada iyo diinta ka hirgashay iyo khayraadka faraha badan ee ka jira waan ku farxaa runtii xaqiiqatan. ka shaksi ahaan aniga aad ayaan ugu farxaa mar walba oo reer somalilan horumarkooda arko, amnigooda arko, waxbarashadooda arko, diintooda arko, masaajidadoodan faraha badan arko, culummadan faraha badan ee joogta arko, dacwadan ka jirta arko, waan ku farxaa. mararka aan arka khaladaad jira iyo dulmi ka jirana waan ka naxaa oo waxaan isdhahaa dulmigan iyo diinka fogaanshahani waa kii soomaaliya halkaa dhigay ee miyayna ku cibro qaadanaynin, armo ayagana ka daba taga ayaan isdhahaa. laakiin waxaa mushkilad ah ummadda dhan ee wanaagsan, ee aqoon-yahanka leh, ee ganacsatada leh, ee culummada leh, ee madax leh, ee shacab leh, een marnaba dulmiga lagu hayo walaalkaa aan ka hadlaynin, walaalkan aan u doodaynin, aan u shafaaco qaadaynin. xaqiiqatan waa arrin aad loola yaabo. anigu waxaan idin leeyahay reer kanow, reer somalilandow, waxaan idin leeyahay ilaahay wuu idinku dhowranayaa. cabdimaalik muuse coldoon oo nin samawada idiin ahaa ah, oo dhulkiina wax ka qaban jiray, oo waddanka uu wax u qabtay annagu ku faraxsannahay waddankiina ahaa, agoonta uu wax u qabtay agoontiinnii ahayd, rajada uu wax u qabtay rajadiinnii ay ahayd, guryaha uu dhisay guryihiinnii ay ahayd, waddanka uu wax ka taray waddankiinnii uu ahaa, idinka uu wiilkiinnii ahaa, annagana wiilkanagii buu ahaayo wiil soomaaliyeed buu ahaaye runtii waan ka xunnahay dhaqanka aad kula dhaqmaysaan. waxaa jirta birmageydan la dhaho, qofka noocan oo kale ee samawadalka ah ama samawadaha ah runtii xaqiiqatan waa laga gudaa, waa laga weecdaa. hadduu khaladaad ka dhaco xataa khaladaadkiisaas waa la iska dhaafaa, li'anna wanaagga uu qabanayaa ka badan. meeqa agoon ah, meeqa rajo ah, meeqa masaakiin ah, meeqa garoob ah oo wax uu u tari jiray baa maanta ooyayo oo dabku ka dansan yahay, isaguna dabka u shidi jiray, ilaahayna ugu soo dhiibi jiray, u hadli jiray, u dhaqdhaqaaqi jiray, masaakiinta dadka uu wax ugu sheegi jiray ayaa maanta dabku ka dansan yahay. oon maanta intaa uu xidhan yahay ee xabsiga uu ku jiro aan qof u dhaqaaqayaa jirin. walaalayaalow, ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala. wiilka maanta waxa uu ku xidhan yahay waa wax aynu kulligeen ka wada dharagsannahay, waa wax inta badan huuhaah iyo dulmi ah iyo dhanni ah. 5 qodob buu yidhi yuusuf shaacir, 5 qodob ayaa lagu haystaa buu yidhi. 5 qodob ee maxkamadda maanta lagu soo eedeeyey, 5 qodobba waa wax lagu qosla ayuu yidhi. waa ninkaad idinku u taqaanaan inuu yahay hal abuur, yuusuf shaacir, inuu yahay hal abuur, inuu yahay ninka maraajicda dastuurka iyo waxyaabaha lagu dhaqma loola laabto, dadka loola laabto inuu ka mid yahay. 5 qodob abwaan buu agtiina ka yahay. wuxuu ku tilmaamay 5 qodobba wax lagu qosla inay ahaayeen ayuu ku tilmaamay. 5 qodobba wax lagu aan ma garanaysaa maanta lagu qosla inay ahaayeen. marka walaalayaalow, ilaahay uga cabsada, ilaahay wuu idinku dhowranayaa. welibana erayada uu maanta adeegsaday ee maxkamadda uu ka sheegay waa erayadii soomaaliya. madaxweynihii hore siyaad barre intii lagu lahaayey culummadu ku lahaayeen dheg jalaq loo siin waayey, maanta halkaas soomaaliya dhigay weeyaan. idinkana yayna meel xun idin marinin ee ilaahay uga cabsada ayaan idin leenahay.